بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena sirta nolosha. xalqadan waxaan kaga hadli doonaa wax la isla wada yaqaano laakiin aan si yar fudud oo kooban doonayay inaan sheego. Taas waxa weeyaan faa'iidada wax akhriska. Faa'iidada wax akhriska ilaa yaraanteeni waa laga yaabaa markaan dugsiga dhiganay ilaa intii aynu weynaanayna qofku in la yiraahdo wax akhriso oo ma garanaysaa ama waalid ama macallin ama cid kale ay ku kula taliyaan. Hanaankii wax loo akhrisanayay xataa laftirkiisu inuu isbedelay baa laga yaabaa. بريء هورين بوق لقى آخر سنتري مركي دمنا موبايل هذا يا iPad ده وحلا لقى آخر سنتري إلا مركي دمبي مكان وحبة بالله آخر سن بوق جيبي يسوي قفكوا آخريه تبي تسوي أوريو بوق أدقي سنيسو يسوي بوق دمانتي العدي أدقي سنيسو وحندوني مكان كهالله فإذا ده قفكوا إنه وح آخرستو وحدونا آخرستو أما علمها آخرستو أما وحكي لو تشعليها آخرستو أما شيكوين خيالها آخرستو guud ahaan qofku wuxuu ka faa'iideeyaa afar shay oo laga faa'iido iyo sidii aad u yeelan lahayd caado wax akhris aynu doonayna maanta inuu si kooban uga hadalno. Ta koobaad ee aan isleeyahay qofku uu ka faa'iidaa wax akhriska intii aan noloshayda arkay qof iga sareeya, qof iga hanti badan, qof iga aqoon badan, qof iga xilkasnimo badan intii aan arkay hal astaana buu markasta i dheeraa. halka astaani wax weeyaan wiiga wax akhris badnaa ma garanaysaa wiiga wax akhris badnaa halka aan anigu ka akhriyo tusaale ahaan saacad maalintii isagu markasta ama 3 ama 4 buu wax akhriyaa. Marka waa hal astaana oo qof kasto wax ku dheeri uu ku dheeriyahay. Qof kasto wax ku dheeri waa hal astaana oo ku dheeriyahay. Marka faa'iidada koobaad ee aan isleeyahay qofku uu ka faa'iideysaa wax akhriska uu ka faa'iideeyo waxay faa'iido ballaaran oo ah qofku aqoon buu ka helaa. Waa faa'iido ballaaran waxa soo hoos gali karaya ilaa 13 qodob. aqoon buu ka helaa sidoo aqoon uga helaa qofku marka uu buuga akhriyo dabcan xog buu ka helayaa waxa kale uu ka helayaa tusaale ahaan haddii maanta aan kaaga waramo buug Boortaqiis ka hadlaya uu ka waranto waxay ka dhigan tahay meesha adigoo inta tigir u goosatay diyaarad ku tagay dabadeed soo eegay dadka ka soo waramay xaaladooda soo arkay meeshu siday tahay u dhiganto haddaad buug ka hadlaya Boortaqiis waad soo aragtay meeshii waxa kale oo aqoontaas ku soo hoos galaysa haddii markaad buuga Boortaqiis ka akhrido waxaad ogaanaysaa dadkaasi siday u fikiraan siday nolosha u arkaan siday diinta iyo Ilaahay u arkaan ayaad ogaanaysaa siday dadkaasi u fikiraan baad ogaanaysaa waxa kale oo aqoonta soo hoos galaysa waxaad baranaysaa dadkaasi sidii aad ula xiriiri lahayd waad la sheekaysan karaysaa qofka caasimadiisii baad garanaysaa magaalooyinkiisii baad garanaysaa waxa mabda u ah baad garanaysaa wuxuu ka xanaaqaa baad garanaysaa inahaasoo dhan ayaa soo hoos galaya qofku waxa uu yeelanayaa oo isla aqoontaas soo hoos galaysa qofku wuxuu baranayaa sida wax loo qorayo qofku wuxuu baranayaa sida wax loo cabirayo qofku wuxuu baranayaa vocabulary ereyo cusub oo ku cusub buu baranayaa qofku goobo ku cusub buu baranayaa kolka ta koobaad ee laga helaa waa aqoon ee la isku wada raacsan yahay caruur iyo ciroolaba. arrinka labaad ee laga faa'iidaa waxa weeyaan wax akhrisku maskaxda carisaa qofku soo jiim ma galo oo muruqyo ma yeesho maskaxda ayay carisaa wax akhrisku way ka fikirsiinaysaa markan buugu Boortaqiiska uu ka hadlayo maskaxdaadu waxay sawiranaysaa meesha Boortaqiisku sida uu eeg tahay sida jawigeedu uu eeg yahay sida dadku maskaxdaadu waxbay sawiranaysaa maskaxdaadu meyd maaha waxbay sawiranaysaa markastoo erey lagu yiraahdo ereyga way sawiranaysaa khayaalkaagay ballaarinaysaa kolka maskaxday carisaa wax akhrisku sidoo kalena waxa la yiraahdaa qofku ka wax akhris badan yahay waxa ku yaraada xanuunada gabowga sida tusaale ahaan Alzheimer-ka iyo dementia-da xanuunada ma garanaysaa ilowshiyaha iyo xanuunada gabowga markasta la socda ee qofku hadii uu 50-60 kor u dhaafo uu halista u yahay markasta hadii uu wax akhriyo halis uma aha waayo maskaxdiisa ayaa la carinaya hadiya goor shaqeynaysa maskaxdiisa hadiya goor wax sawiranaysa taas waa faa'iido labaad. faa'iidada saddexaad dhamaanteen baa wada baahan wali gaar ahaan Soomaalidu aad bay ugu baahan waxa weeyaan qofku wuxuu baranayaa sida wax loo focus gareeyo iyo samirka marka buug akhriyayso paragraafka waad focus gareynaysaa ishaad ku haynaysaa sentence-ka ishaad ku haynaysaa samir baad yeelanaysaa halkaas aad fadhiyaysaa buug baad saa u haynaysaa cid kula ma hadlayso kubad ma ciyaaraysid mobile ma daawanaysid samirkaad ku baranaysaa focuskaad ku baranaysaa sida wax loo dhageysan karaad baranaysaa sida wax loo akhris waxaad baranaysaa inuu qofku meel fadhiyi karayo oo uu muddo wax samayn karayo isagoo oo aan attentionkiisa iyo aragtidiisa ma garanaysaa baa la daymoonayn baa baranaysaa. faa'iidada ugu dambaysa ee aan isleeyahay wax akhrisku leeyahay waxa weeyaan qofka wuxuu ka yareeyaa stresska waxa afka qalaad loo yaqaan waa mood stabilizer
tusaale ahaan haddaad xaalad ku jirtay oo aad xanaaqsanayd oo aad buugga akhrido buuggu wuxuu ku gelinayaa xaaladda aad ku jirto buu gelinaya waayo uu ka awood weyn wax kasta oo kale xaaladda aad ku jirtaa buu xoog ku gelinaya waayo waad sawiranaysaa waad arkaysaa uu kuu muuqanayaa moogta dibad xaaladaasaad gelaysaa markastana waxaa la yidhahdaa buugta waxaa la akhriyaa markuu qofku sii seexanayo taasi waxay saacidaa qofku inuu si yaroo dhib yar u seexdo oo hurdo caafimaad qabto helo maadaama maskaxdiisa intay shaqaysay qofku markuu seexay isdhaahdo hurdo yaro wuxuu helayaa nadiifa buu helayaa afarta faa'iido waaweyn ee laga yaabo qodob kasta aynu xubno gaara sii yeelan karayo baan ku soo koobi karayaa faa'iidada wax akhriska haddaba sidee baad u yeelan karaysaa caado ama routine wax akhrista koowaad waxa weeyaan wax akhriskaaga waa inaad ku xidhaa waxaad maalin kasta samayso haddaad tusaalahaan maalin kasta baska raacdo wax akhri haddaad tusaalahaan maalin kasta saacad shaqayso ama saacad masaajid ku jirto waxaad maalin kasta samayso ku xidh wax akhriska si aanad u ilaabin dee maalin kasta waxaad samayso ku xidh wax akhriska haddaad bas raacdo haddaad masaajid gasho haddaad qolkaaga joogto haddaad shaqayso shaqada ka hor saacad wax akhrisa samee haddaad seexato xataa hurdada laftirkeeda tiraahdo saacad ka hor intaanan seexan baa shayga akhriya marka horta koobaad waa inaad ku xidhaa shay aad maalin kasta samayso arrinka labaad waxa weeyaan buug weynun ha raadin hadday wax akhris noqoto wax akhrisku maaha buug weyn waxa wax akhris noqon karaya magaziinada xataa markaad sii socoto haddaad xataa jaraa'id akhrido oo markaad sii socoto aad hal jaraa'id ka sii dhex baxdo markaad baska sii saarantay intaad jaraa'id iibsato aad jaraa'idkaa dhamayso ama aad magaziin akhrido ama aad booklet yar akhrido ama magaranaysa wax kale haddaad xataa akhrido aqooni ku jirto oo dee cidi qortay oo formal writing haddii aad akhrido iyada laftirkeedu waa wax akhris bay ku xisaabsan tahay buug weynun ma aha inaad markasta istaba sido ta saddexaad ee aan kusoo koobaya waxa weeyaan marka aad wax akhriyayso ama aad doonayso inaad wax akhrido waa inaad iska yaraysaa waxa kaa jiiraya hadduu telefoon jiro telefoonka iska ilaali telefoonka eegi tv-ga ha shidin laptopka ha shidin marka aad wax akhriyayso waa inaad iska ilaalisaa wax allaaliya wixii kaa jiiraya ee attentionkaaga jiidanaya ee magaranaysaa ee kaa dhigaya inaad dhantaalanto oo dareenkaagii iyo attentionkaagii uun dhantaalmo waxa kaa jiirayo dhan waa inaad iska ilaalisaa inahaasaynu kusoo koobaynaa wax akhriska aad iyo aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم دمانتين برنامجك سيرة نولوشة وحين كجا هذا لنا مواضيع دمانتين إنه وضع فعية هدي أدو باهتو تلو يتسالين جارة وكسابسن الرم أما مشكلة نولوشة هذا جرتا واحد فرين يجا صوت ذكرتها إيميل كان أما واحد يجا صوت ذكرتها تلفون كان أدبد معتصنتين